xildhibaanadan maanta kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si qoto dheer uga hadlay heshiiskii Kampala oo ahaa midka muranka weyn ka dhex aloostay xubnaha ugu sarreeya ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyagoo xildhibaanadani maanta kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ay ka mideysnaayeen ka soo horjeedka heshiiskii Kampala xildhibaanad Caasha Axmed Cabdalla oo goobta ka hadashay ayaa si kulul u weerartay heshiiskii Kampala iyo labada mas'uul ee u ololeynaya hirgelinta heshiiskaasi oo xildhibaanad Caasha ay ku tilmaantay inuu ka dhigan yahay heshiiskii ka dhacay Berlin sanadkii 1884 ee Afrika lagu qaybsaday iyadoo madaxdii saxiixdana ku tilmaantay in ay yihiin qaa'inul wadan iyadoo shacabkana ka codsatay in xildhibaankii taageera heshiiskaasi nolosha lagu gubo waa sida ay warka u dhigtay aniga shirkaas wuxuu iiga dhigan yahay maalintii Afrika lagu qaybsanayay Berlin lagu qaybsanayay uu ka dhigan yahay ninka soo saxiixayna waa qaa'inul wadan waa in talaaba shacabka iyo baarlamaanku ay ka qaadaan haday baarlamaanku ka qaadi waayaanna oo cidii baarlamaanka ka tirsan oo loo arko inay u xaqlinayso labada shaqsi oo ka hadlayo oo ah laba shariif waa inaan waxaan u soo gudbinaynaa shacabku inay talaaba ka qaadaan tallaabay ka qaadaan baan u soo gudbinaynaa oo waliba taageero lagu gubo waa waqtigii baarlamaanka cid ilaalisa ma jirto Museveni askartiisuna kuma wareegsana marka xildhibaanka eexda ka shaqeeyo dalkeena kumaysi qabo inuu ugu garabeeyo raggaas waa in taayir lagu gubaaweeyo xildhibaan Gaarane oo ka mid ahaa xildhibaanadii kulankan maanta ka dhacay Muqdisho ka hadlay ayaa si aad u falanqeeyay waxa ay 10 qodob ee uu heshiiska Kampala ka kooban yahay ku tilmaamay in mid ay ka dambeeyaan dad shisheeye ah oo dana guracan kale Soomaaliya oo doonaya in ay meesha ka saaraan axdiga ku meel gaarka ah si loogu dhaqmo 10kaas qodob isagoo ka codsaday madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah iyo afhayeenka baarlamaanka inay tixgeliyaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo ay ka toobad keenaan isla markaasna ka laabtaan heshiiskaasi inta aan la horkeenin baarlamaanka ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaan leeyahay heshiiskaas Kampala wax badan baan ka hadalnay meediyaha xildhibaanadu way ka hadleen dhammaan qaybaha bulshada way ka hadleen mana filaayo cid ama beesha caalamka ka mid ah ama Soomaaliya mas'uuliyadeeda ka mid ah oo caawa qalbiga ku haysa maanta oo jimco ah in heshiiskan la sii wado oo la dhaqan geliyo cid bal qalbiga ku hayn kartaa inay jirto ma aaminsani waxaan leeyahay anigu heshiiskan in badan baan ka hadlay waxa uu yahayna xataa dood baan ka galay mar rabo marka inaan ku dheeraado waa mid la rabay ummadda Soomaaliyeed sidii hore loo cabiray in lagu qaado xorriyadeeda ee gumaysi lagu geliyo shuruucda u yaala xiriqarameedka iyo shuruucda kale lagu tirtiro oo dalka ay sharci u noqoto 10kaas qodob iyadoo ay ku danaysanayaan dad shisheeye oo Soomaaliya doonaya inaysan soo noqon qarannimadeedii sharafkeedii intaasan ka uga baxaya waxaan leeyahay madaxda qaranka ee noo soo saxiixday heshiiskaas waa aragteen shacabka matalayseen dareenkooda waad aragteen siday u muujiyeen waxaan idinka codsanaynaa in aad tooba keentaan oo ka laabataan heshiiskaas inta aan la keenin baarlamaanka ka hor xildhibaan Gaarane ayaa sheegay in marka heshiiska Kampala la horkeeno baarlamaanka ku meel gaarka ee Soomaaliya ay kala cadaan doonto in xildhibaanada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka iyo in ay yihiin waa sida uu warka u dhigaye kuwa danaystayaal ah waxaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed waa nala xaman jiray wax badan oo ummadda Soomaaliyeed waxaana laga sheegi jiray maanta heshiiskan Kampala ama waxaan ku noqonaynaa xildhibaano mesela shacabka Soomaaliyeed dareenkoodana ka turjuma dalkoodana ilaalinaya madax bannaanidiisa iyo xorriyadiisa ilaalinaya mas'uuliyaddaana sida horeba loogu xushay waana lagu aaminayaa waana ku shaqaynaynaa ama waxaan noqonaynaa dad danaystayaal ah oo aan ka turjumaynin danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee diinkooda iyo xorriyadooda ummadda Soomaaliyeedna way naga tashan doontaa ugu dambeyntii xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kulanka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in xildhibaanadu ay ku qasban yihiin in ay dhinac istaagaan waxa ay shacabku doonayaan nin walba dareenka maanta uu ku yimid waxa weeye diric kali ahaantii dhalada guusha kama helo dadka geesi lagu yahay annaga waxaan aaminsanahay magaca aan xambaarsannahay sida uu yahay inaan uga turjunno waxaa runtii aad qiimo u lahaa ninkii ka hadlayay halkan ee qodobeeyey
waxa heshiiska dadka Soomaaliyeed ay u arkeen iyo dareenka ay ka muujiyeen iyo waxaan laga sugayo haddaan anaga magacoodii ku fadhiyo annaga haddii magacayaga la yidhaahdo golaha shacbiga hadda nina waalidkiisa kama weynaa annaga golihii baan nahay waxaana dhalay shacbigii marka murti oo raxwiba waxay leedahay walleen weelweelay maahan walluum waalidkii guwinada koreen hadalkan ka soo yeeray xildhibaanada maanta kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ayay hubaal tahay in ay ku diirsanayaan dad badan oo ka soo horjeeda heshiiskii Kampala hase ahaatee in xildhibaanadu ay ka dhameyn doonaan hadaladooda iyo in kale waa su'aal waqtiga uu ka jawaabi doono Ibrahim Maxamed Hussein Ibrahim JK Universal TV عاصمة الصومالية Muqdisho